furo waxa ugu badan ee ilmaha hadalka ka yareeyo ee aan maxaan ku dhahaa active ka badan siinin waa TV-ga hooyooyinka waxaan kugula talinayaa ha u ogolaan ilmahaagu intuu 2 sano ka yar yahay ilaa 3 sano ka yar yahay inuu TV-ga dhan total inuu daawado ha u ogolaanin xataa 1 minute waxa laga yaabaa weekii hadaa ugu badatid weekii ama 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo yar laakiin inta kale ha u ogolaanin xataa kuwa kale haday daawanayaan ha u ogolaanin asagu inuu daawado mashquul ciyaarsi adigu ku mashquul thank you si qala baayo TV-gu waa waxa ugu badan ee ilmaha effect gareeyo ilmayaw hada waa jiraan ilaahay subxaanahu wa ta'aala caafimaad ha inoo siiyo hooyooyin badan oo autism-ka ilmaha waa jiraan kuma jirto iyaga oo mataqaana autism-ka ah laakiin ilmaha hadalku ka daaho mataqaana oo 3 sano iyo hadhowtida ku hadlo ama maxaan ku dhahay hadhow halka ka soo noqdo hooyadu waxay u baahan tahay dadaal badan inay suubiso inay TV-ga ka dimiso inay ayadu la sheekaysato maanta dhan kaalayay burbaan waxaynayaa qaadadii meeday hooyo saxanka ii keen saxan dheh qaada dheh adu xataa adaan dheh dhihin maanta dhan hadalkaaga ha maqlo qof la sheekaysanaya asagii how hebelow kaala kaniiso qaw kan magacii kan muxuu yahay maanta dhan adig inta ugu badan waqtigaaga in asaga la hadlaysid si la sheekayso la waqti la gali la ciyaar way adag tahay oo mataqaanaa waqti badan bukaa raba hooyaa tahay waxa laga yaabaa ilmo kale inay kugu xiran yihiin hawsh guriga kugu badan tahay laakiin ilgooni ah si inuu aamusnaado oo meel fadhiisto iska fariisto ha u ogolaanin inta badan kala dirar inta badan adigu inaad la sheekaysatid ama ilmaha kaliya aad ula hadashaan waxa maxaan ku dhahaayeeto quraan guriga ka daar oo ilmihii dhageysanayaan oo mataqaanaa aan lahayn wax cartoon iyo wax boodboodaya wax baalkiya laakiin se adigu maxaan ku dhahaayay ilmihii waqtiga si ee waqti geli ee la sheekayso ilaahay subxaanahu wa ta'aala u bari abaa inuu hadalka u furo mar walba u ducee ilaahay u bari inuu ilaahay hadalka u furo insha Allah waa garanaya hooyooyin badan